soo dhawaada daawadayaal galab wanaagsan qodobada xiisaha leh aad galabnimadan aad halkan ku daawan doontaan haddii ay baraale laga helana maantana waxa ugu waaweyn ugaaska beesha ciise ayaa safar qarsoodi ah waxa uu ku tagay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho isagoona Villa Soomaaliya si wanaagsan ay ugu soo dhaweeyeen xildhibaanada ka soo jeeda beesha ciise iyo waliba sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dhawaana waxa lagu dhawaaqi doonaa maamulka Guban State haddaba faahfaahinta xogtaas ayaan rabaa saaxiib yaal inaan halkan idinkula wadaago sidoo kale qodobada kale xiisaha leh aad galabnimadan aad halkan ku daawan doontaan haddii ay baraale laga helo waxa ay ka mid noqonayaan ciidamo ka tirsan maamulka Somaliland ayaa weerar waxa ay ku qaadeen fariisimo ay ku sugnaayeen ciidamada geesiyaasha ee beesha ciise iyagoona iska xaabin xoogan ay kala kulmeen geesiyaasha madaniga ee beesha ciise haddaba ku haya faahfaahinta xogtaasi khasaare intee leeg ayaa la gaarsiiyay ciidamada maamulka Somaliland sidoo kale qodobada kale xiisaha leh aad galabnimadan aad halkan ku daawan doontaan waxa ka mid noqonaya garsoore Cumar Cartan oo la filayo in saacadaha soo aadan uu soo gaaro magaalada caasimadda ee Muqdisho xilli halkaasi la filayo soo dhaweyn diiran halkaasi loogu sameeyo dadka shacbigana ay doonayaan inay garab istaag ay u muujiyaan kadib markii magaalada Miami ee dalkaasi Mareykanka laga soo celiyay isagoona doonayay in koobka adduunyada dhacdada ugu weyn ee dunida uu ka soo muuqan lahaa sanada 2026 isagoo ahaa garsoorkii ugu wanaagsanaa ee Soomaaliya marka loo fiiriyo qodobadaas iyo kuwa kale oo qarsoon ayaan saaxiib yaal halkan idinkula wadaagayaa ay soo dhawaada anigu waxaan ahay Abdiraxmaan Lisbon halkan aad iga daawanaysaan waa kanalkayga Macaash Media haddii aad markuu ugu horreysay fadlan kanalka rukumo oo subscribe dheh muuqaalkan aad daawanaysidna la garay si share garay saaxiibadaada la wadaag like-tu waxay ka mid tahay muuqaalka ayay meel leer gaarsiisaa haddii aad daawanayso waxaan si niyad leh kaaga codsanayaa saaxiib inaad like dhahdo muuqaalkan comment-kana aad nagula wadaagto aragtidaada qodobkii ku soo jiitay maasanadiin hagaag aynu ku bilaawno ugaaska guud ee beesha ciise ugaas Mustafa Cabdi Ibrahim ayaa soo gaaray magaalada tan ee caasimadda ay Muqdisho isagoo waliba safar qarsoodi ah halkan uu ku yimaaday isagoona halkaasi uu kulamo uu la yeelanayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud oo muddaxileedkiisu dhamaaday iyo sidoo kale waxa uu markaasi doonayay xildhibaanada ka soo jeeda beesha ciise inuu halkan kulamo kala duwan uu kula qaato isagoona si ay uga areensadaan maamulka Guban State ugaaska guud ee beesha ciise ayaa ah mid ka mid ah ugaasada markaasi taladooda ay go'do beesha ciisena ay ka dambeeyaan ayaa safarkiisa waxa uu ka dhignaan doonaa mid markaasi qiimo iyo qaayo badan ku fadhiyo isagoona madaxda ugu sareysa ee dalka uu la kulmayo xaaladda guud ee maamulka Guban State waliba sidoo kale ciidamada madaniga ee geesiyaasha ee beesha ciise ugu warbixiyo ugaaska ayaa tan iyo markii uu ugaasnimada loo doortay waxa uu geed gaaban iyo geed dheerba u fuulay sidii uu markaasi u hirgelin lahaa magaca maamulka Guban State iyo buugga heer ciise inkastoo la rabay in buugga heer ciise la hirgeliyo haddana madaxweynaha dhawaangalka ah ee Somaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ciro ayaa suurtaag ku sameeyay iyadoona maamulka Guban State sidii xilligaasba ay naqatay in dagaal adag ay la galaan maamulka Somaliland maleeshiyada beesha Samaroon iyo cid kasta oo u nacamlaysa haddase xaaladda waxa ay u muuqataa mid ay ka adkaanayso oo maamulka Guban State mid hirgeli kara ugaaska beesha ciise ayaa kulan albaabada u xiran yahay waxa uu la qaadanayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud isagoona kala arinsanayo xaaladihii kala duwanaa ee maamulka Guban State beesha ciise hadda waxa ay doonayaan in ay hirgeliyaan maamulka Guban State sidoo kale waxa ay doonayaan in ay hirgeliyaan buugga heer ciise oo munaasabad weyn ay doonayaan in loo qabto ujeedada ugu weyn ee safarkiisa oo Muqdisho u yimaaday ugaaska beesha ciise ayaa ah in uu markaasi la hirgeliyo maamulka Guban State iyo sidoo kale in maaragtay taageero ballaaran ay dawladda Soomaaliya ay u fidiso geesiyaasha beesha ciise xaaladda ayaana sii xumaan karta haddii dawladda Soomaaliya garab iyo gaashaan ay noqoto ciidamada geesiyaasha beesha ciise iyo waliba sidoo kale dhinaca maamulka Guban State haddii ay ka garab istaagto balse dhawaanayay ahayd markii ciidamada la sheegay kuwa haram cad ay markaasi ku baxeen gudaha Soomaaliya iyagoona gaareen maamulka waqooyi bari ee magaalada Laascaanood iyagoona ay ka soo dhaxali doonaan magaalooyinka Booramo iyo waliba sidoo kale Saylac iyo meelo kamid ah balse laakiin arintaas oo ay u muuqato mid ay dhibaato badan ay ku sii noqon karto Somaliland maadaama maamuladii iyo waliba sidoo kale deegaanadii kala duwanaa oo ay xisaabsanayeenba gebi ahaanba ay kala go'een iyagoona Booramo iyo meelo lamid ah ay kaliya u soo hartay
ugaaska beesha ciise ayaa dardargelinaya howlaha hortebinta u leh maamulkiisa ee beesha ciise haddase waxaa u muuqataa mid libinta ay dhankiisu ay soo marayso ugaaska beesha ciise ayaa dhowrka maalmood ee soo aadan waxaa ku sugnaan doonaa caasimada muqdisho isagoona kulamo gaargaara oo la qaadanayo mas-uuliyiin iyo weliba sidoo kale dad ka soo jeeda waxgaradka beesha ciise qodobkeena kale ee xigana haddii aan fiiriyana ciidamada maamulka Somaliland ayaa weerar gaadma ah waxay ku qaadeen fariisimo ay ku sugnaayeen ciidamada geesiyaasha ee beesha ciise iyagoona iska caabin xoogan ay halkaasi kala kulmeen deegaanka Heemaal oo kamid ah goobo si weyn ay ula wareegeen ciidamada geesiyaasha ee beesha ciise ayaa hadda waxa uu markaasi dagaal adag ku dhaxmaray ciidamada geesiyaasha beesha ciise iyo maleeshiyada beesha Samaroon iyo kuwa ciidamada maamulka Somaliland oo isgarabsanaya ciidanka maamulka Somaliland ayaa dhowrkii maalmood waxa ay bilaabeen in weerar gaadma ah ay ku qaadaan fariisimo ay ku sugan yihiin ciidamada madaniga ee geesiyaasha beesha ciise tani waxay u muuqataa mid cabsi badan ku abuurayso ciidamada geesiyaasha waa ciidamada markaasi maamulka Somaliland oo isku dayaan in geesiyaashu ay markaasi baaciyaan horey ayaa Heemaal iyo waliba sidoo kale meelo kamid ah buuraha iyo waliba deegaano badan oo durdur iyo waliba meelo kale oo kala duwan ay ciidamada madaniga ay la wareegeen haddase maamulka Somaliland oo dagaalkan ku soo biray ayaa iyagana dhankooda waxa ay wadaan sidii ay ciidamadan ay u dhaqaajin lahaayeen halka ay joogaan geesiyaasha beesha ciise oo halkaasi ku xididaystay ayaa doonaya in si fudud aan looga saarin iyagoona iska caabin xoogan ay sameeyeen khasaare lixaad leh ayaa halkaasi laga soo warinayaa 12 askari oo ka tirsanaa ciidamada maleeshiyada ee beesha Samaroon ayaa halkaasi lagu dhaawacay iyo 3 kamid ah askartii ka socotay ciidamada maamulka Somaliland ayaana halkaasi lagu dilay isku darka wadarka waa 15 qof waa 10 askari waa 12 askari oo dhaawac ah iyo waliba sidoo kale 3 dhimasho ah ayayna markaas sheegteen ciidamada madaniga ee beesha ciise inkastoo maamulka Somaliland ay sheegeen dagaal adag inay la galeen ciidamada geesiyaasha beesha ciise haddana waxay u muuqataa in khasaarooyinka lixaad leh halkaasi lagu gaarsiiyay balse hadda waxay u muuqataa in ay qarinayaan dhaawacyada iyo waliba sidoo kale dhimashada loo geystay xaaladda Heemaal ayaa hadda waqtigan aan la hadlayo daawadayaal ah mid aad u kacsan iyadoona aaga iyo dhufeysida kala duwan ay labada dhinac isugu jiraan arrinkaasina wixii ku soo korana saaxiibayaal muuqaaladan iyo barnaamijyadeena dambe ayaa saaxiibayaal aad uga bogan doontaan qodobka ugu dambeeyana haddii aan fiiriyana garsooraha ugu wanaagsanaa ee qaaradda Afrika Cabdulqaadir waa markaasi Cumar Cabdulqaadir Cartan ayaana markaasi la filayaa in saacadaha soo aadan uu soo gaaro magaalada caasimadda ay Muqdisho isagoona ku sugan dalka Turkiga koobka adduunyada ayaa bilaabmi doona dhawaan maalinta Khamiista ayuuna furmi doona gudaha Mareykanka ayaana uu ku furmi doona sanadkan waxaan daawan doonaa koobka adduunyada ee ugu xumaa ee abid la daawado maxaa yeelay saddex magaalo waa 3 wadan ayaana lagu qabanayaa wax ka badan 18 magaalo waaweyn ayaana tartankaasi lagu ciyaari doonaa wadamada Canada Mareykan iyo waliba sidoo kale Mexico ayaana noqon doona wadamada martigelin doona sanadkan iyadoo wadamo badan ay tartankan gabi ahaanba isaga hareen iyo waliba sidoo kale dad la filin karay riyadooda iyo rajadooda ay halkaasi ka soo muujin kareen oo gabi ahaanba tartanka laga reebo waxaana kamid ah garsooraha Soomaaliyeed Cumar Cabdulqaadir Cartan ayaa loo diiday inuu markaasi Miami ka gudbo kadib markii uu halkaasi gaaray inkastoo la leeyahay wararka qaar ay soo baxayaan ay sheegayaan in Viva gabi ahaanba ay ka gaabsatay arrinkan iyadoona sheegtay inaysan ka xadgudbi karin wadaniyada iyo waliba sidoo kale dimuqraadiyadda Mareykanka iyagoona sheegeen in ay haddu xal ay u raadinayaan balse Viva ayaa laba qorshe maleegsan in ay u raadiso in magaalooyinka waa markaasi Canada iyo waliba magaalada waa maartay Mexico inuu midkood magaalooyinkaasi uu ka dhexdhexaadiyo ciyaaraha ka jira waase haddii markaasi la helo balse hadda sheekadu waxay u muuqataa in gabi ahaanba ay soo afjarmi karto riyadii ahayd in 2026 garsoore Cumar Cartan uu ka dhexdhexaadin doono gudaha cariga Mareykanka tartanka laga qaban doono balse dadaalo badan oo ay wadaan ayaa hadda markaasi lagu muujinayo sidii garsoore Cumar Cartan loogu qayb gelin lahaa tartanka qaaradda waa maartay tartanka ugu weyn ee dunida balse hadda xaaladdu waxay u muuqataa in dawladda Soomaaliyeed ay ka seexatay arrinka garsoore Cumar Cartan oo la filayay in si wanaagsan ay u gali karaan balse rajadii boqolkiiba waa hal oo uu garsoore Cumar Cartan uu kaga soo muuqan karo koobka adduunyada daawadayaal intaas ayaan jeclahay inaan kusoo gabagabeeyo wixii wararkii ugu waaweynaa ee Soomaalida iyo waliba sidoo kale
xogii ugu dambeeyay maleeshiyada beesha Maroon iyo maamulka Somaliland isku dayaan in ay ka adkaadaan ciidamada madaniga ee geesiyaasha beesha Ciise guudaan intaas ayaan jeclahay inaan kusoo gabagabeeyo saaxiibayaal haddii aad halkan ila soo gaartay waxaa qof qalbi wanaagsan waxaan si naxariis leh kaaga codsanayaa inaad YouTube-ka soo subscribe garisid muuqaalka la garay si share garay saaxiibada la wadaag oo ku meesantii daawashada muuqaalka meesanadin